kooxaha muruqooyinka dalkeena dekada ee Muqdisho City Club ayaa galabta ku ballansan garoonka Engineer Yariso Stadium X Banaadir ee dhacay degmada Cabdicasiis ciyaar ka tirsan tartanka koobka Janaal Daawud ee fasal ciyaareedkani. Kulankan ayaa mid aad u xiiso badan, labadan kooxood ayaa diyaargarow xoogan u galeen ciyaarta midkood uu badiyo, waana kulankii ugu horeeyay ee ciyaaraan labadan kooxood koobka Janaal Daawud si la mid ah oo kulankii ugu horeeyay Group B ay ka dheelaan labadan kooxood, waxaana ku weelaya kooxaha Horseed in adiga Elman waana gruubka dhimashada ama gruubka geerida. Labadan kooxood ayaa dhowr jeer isku arkay tartamada kala duwan, inkastoo kooxda dekada ay ka awood badan tahay naadiga Muqdisho City Club marka laga cabir qaato kulamada ugu dambeeyay ee ciyaaraan labadan kooxood MCC iyo dekada. Xaqiiqda ciyaarta laga diiwaangeliyay haddii aynu eegno, kooxda xafidanaysa horyaalka Soomaaliya Premier League dekada ayaa u muuqanaysa mid ka itaalon dhigooda Muqdisho City Club, maadaama 13 kulan ugu dambeysay ay ka guuleysatay 8 kulan halka 5 kulanna ay dhibcaha kala qaateen labada dhinac tartamada oo dhan, taasoo la mid ah in kooxda dekada ay 8 kulan ka adkaatay MCC halka MCC-na ay weli u hanqaltaagayso inay guul ka gaarto naadiga dekada. Kulanka ugu dambeeyay horyaalka isku arkaan labadan kooxood waxaa 3-2 ku adkaatay naadiga dekada, ciyaartaas oo ahayd midii go'aamisay in dekada markii saddexaad loo saaro horyaalka Soomaaliya Premier League. ciyaartii ugu dambeysay isku arkaan koobka Janaal Daawud labadan kooxood waxay ku kala baxeen barbarac gool la'aan ah ever. xidiga lagu magacaabo Faysal Xasan Xaashi ayaa galabta markii ugu horeysay ka hor imaadona kooxdiisa hore dekada, isagoo imanka la jaan qaadaya naadiga MCC Muqdisho City Club. hogaamiyaha cusub ee kooxda Muqdisho City Club ninka lagu magacaabo Mohamed Mysterian ayaa galabta kulankiisa ugu horeeyay wajihi doona kooxda ku dhibanta MCC inay ka adkaato dekada, isagoo raba inuu soo afjaro taariikh xumada ka haysata kooxdaasi ee dekada. naadiga MCC ayaana kooxda difaacanaysa tartanka xiisaha badan Janaal Daawud, maadaama sanadkii lasoo dhaafay ka qaaday kooxda lagu naanay Sacbiyi maalin Horseed ciyaartii ugu dambeysay is arkaan labadan kooxood. wiilasha dekada ayaa koobka Janaal Daawud ugu dambeysay inay gacanta ku dhigaan sanadii 2001, waxayna markaan rabaan in sanadkan ay ku guuleystaan koobka xiisaha badan ee Janaal Daawud, maadaama horyaalka 3 sano isku xigta ay qaadaysa naadiga dekada. haddii aynu eegno wararka labada kooxood ee Muqdisho City Club iyo dekada, xidigaha galabta ka maqnaan kara iyo xidigaha u soo laabtay. naadiga dekada kulan ciyaareedkan galabta waxaa kaarka roosa ugu maqnaan doona xidigooda lagu magacaabo Cabdulle Awali, kaasoo qaatay casaanka kulanka ugu dambeeyay horyaalka Soomaaliya Premier League ay kooxda dekada wajahday naadiga MCC, ciyaartii go'aamisay in kooxda dekada ay markii saddexaad ay ku guuleysatay horyaalka Soomaaliya Premier League. kooxda Muqdisho City Club dhammaan xidigeeda waa ultam, waxayna diyaar u yihiin inay wajahaan difaacayaasha horyaalka Soomaaliya Premier League. tartanka waa Janaal Daawud, kooxaha Muqdisho City Club iyo dekada. garoonka ciyaarta ka dhacaysa waa Engineer Yariso X Stadium 9 saac bar ayay soo gali doontaa maalinta waa Arbaco oo maanta taariikhdan ay ku beegaan 23 bisha 10 2019. jawiga garoonka waxaa lagu qiimeynaa cabir ahaan 30 centigrade. qiimaha garoonka lagu galayo waa lacag la'aan. dhammaan taageerayaasha ayaa u tafaxiidanaya inay gaaraan garoonka Engineer Yariso si ay u daawadaan kulan ciyaareedka weyn ee iswajahaya kooxaha Muqdisho City Club iyo dekada. Cali ayaa galabta ka hor imaan doona kooxda MCC oo iska jecel yahay inuu mar walba ka adkaado ee Muqdisho City Club. haddaba haddii aad muuqaalkan daawato aragtidaada hoos inoogu reeb saaxiib, like iyo share subscribe-na inoo saar janaalka. aadaad u mahadsan tahay la socodka warbixinadeena iyo sidoo kale sidaad inoo dhiirigelinayso.